السلام عليكم أصحابي وأنا السلام عليكم كوسو دوا channel كنا فضلا هدي أنا سبسكرايب كرينا اللي وين سبسكرايب كريس channel كا مركز أصحابي حن كوسو دويني channel كنا وقتي بقى إن صور حكاي شلي يقدر فيديو مصور دقين صوت وحيد وأنا مشغول سنة وحاويان فيديو قدام بي صوت حدا إن صور دقني وحرجينا إن ضد بدن وكم إذا أشير كريين بدو ما تنتين كو شير كري because حقيقة وأرن تعامل يدك ولي ضمير كوكوهر وعرن إني كهلا نهاد سبتعت قدام مثلا نرجعني وضعوني كرتاب والله عدي أنا شركرين مدعوين حنكو إنكو إنك عبسن إناد فيرسيد anyway إن شاء الله وحويان ما أنت وويكي عصبة أهان بين فيديو وتلكلنا وحنا خروج شيء هذا ويك إن شاء الله aynu isla trade karayno trade-ka markaas jira anaga oo eegayna strategies-ka noo kala khaaska ah laakiin aynu ku wada trade karayno si aynu iskaga faa'iideysano dhexdana san hore idinku sheegay macallin meey kala waxa weeyaan qof trade karaynaya ayaan ahay trade-ka safarkiisa bilaabay waqti aan saa u fogay idinkana idin sheegay ka bacdina qofkii ama bilaabaya ku soo dhaweynaya qofkii kale aan bilaabeyna taageero weydiisanaya inta maxaan dhahay iyagu wax taqaana ee rabtay inay practice garayso in isweydaarsan oo aan inta horta video wuxuu ka kooban yahay mar walba anyway insha Allah trade kan hadda bilow mid man live ban ku jira trade live ayaan ku jira waa USD Japan laakiin horta USD Japan dan live is idin keenin waxaan rabaa inaan idin tuso somehow waxa aan mar walba trade ka bilaabo Forex Factory waxaan tagayaa Forex Factory san hore ku sheegay calendar kan mar walba aadaha so calendar ka meeshaas ayuu ku yaalaa calendar ka markaynu aadno waxaan iska fiirinayaa aniga inta badan waxaas markaas aad kala kulmi karto ee jira beeriska aad trade garanayso ana waxaan trade garanayaa USD Japan so inta badan file-ka xasaanka aan iska fiiriyo because file-ka xasaanka wuxuu ii sheegayaa inuu lacagta markaas ayada economically inuu geysan karo wax kausa so hadda waxaan sameynay effect inuu u geysan karo waxaan fiirinay waqtiga u dambeysay iyo beeriska aan beer garanay midka ku jira so beeriska aan jibka waa either USD ama Japan so Japan ama USD news-kooda ayaan fiirinaya Japan hal mar baan halkan ku arkaa markalna halka laakiin dhamaan waa pink waxaan ka wadaa waa colorkaas laakiin inaan fiiriyo yellow-ga muhiim ima ahan USD-ga ayaan arkaa inuu dhowr jeer soo noqday USD-gana hal mar ayaan arkaa inuu maxaan dhahay casaan saaray hal markaas saacadda waxa weeyaan aniga markaas ay tahay waa 9:10 yes 9:10 and something wait saacadda halkaas ayaad ka saxani kartaa hadda saacadda aan fiiriyo أنا ساعدي waxay tahay 3:31 soo qofay 3 barkii u tahay la hada saxaa waxyar aha soddon kan waan isku dhownahay yani sagaalkii mise shantan dhaha afarta saddexda right saddexda aan dhaho follow right yeah just gonna use this one so that is so yeah so let's save this setting anyway go back to the calendar and I got done Latin January so don't tell me information hadii dooni la mesh iyaalo iska beddelin oo iraad USD oo ka USD kalka 12 maanta doorkii bay laakiin ahaydba so anyway probably effective sense file-ka fur hadda rabti oo eeg waxa ay ku saabsan tahay mar walbana 5-ka aad furtid waxaad arkaysaa waxaad ogaanaysaa lacagta sir oo kooban kugu sheego hadii intaas yani usual effective aad fiirin kartaa khaasatan hadii aad waqti aadan badan hayn so usual effective wuxuu ii sheegayaa hadii actual ko halkan weeyaan halkan actual ko ka dib care yahay forecasting markaas it's good for currency so taas waad fiirin kartaa anyway ana halkaas qasab weey inaan iska fiiriyo because dadka waxa jira inta badan fundamental trade analysis-ka dadka fundamental aan analyze kareeyo aad bay u muhiimsan tahay because marka qaarkood waxaad arkaysaa inuu trade-ku xoog hal mar hiijo soo dhacay ama hiijo kacayo markaas oo kale fundamental-ka ayaa ugu wacan marka kuwa aan waqtigaas oo kale news-ka sugayo oo kale somehow news-ka ay la sugayaan and then news-ka la trade kareynayaan some of us marka ani fundamental analysis-ka ayaan jeclaa inaan iska fiiriyo because aanu mar walba technical analyzer baan ahayaa so waxaan tagi marka anyway trade-ka ayaan tagi trade-ka aan ku jiro waa kan
waa USD Japan and hadda ku jiro. So USD Japan adiga strategies-ka isticmaal ku khaas kale kan kayga waan kuu sheegay oo waxaan isticmaalayaa aniga moving average-ka oo isticmaalayo maxaan dhahay as a resistance and support. At the same time waxaan isticmaalayaa moving average standard kala waqti kala dhow yahay. At the same time waxaan isticmaalayaa frame-ka 15 minute-ka laakiin adi xataa 1 hour-ka waa eegi kartaa. So markaan 15 minute trade gareynayo waxaan idin sheegay mar walba inaan aniga hour-ka iska fiirinayo. Hadda adi hour trade gareynayso 4 hour-ka iska fiiri. At the same time one day ada trade gareynayso 1 week iska fiiri, you know. So ana hada 15 minute kan trade gareynay moving average-ka wuxuu sheegay inuu downward aha. At the same time waxaan iska fiiriyay 1 hour-ka saan u tijaabiyo downward buu asay intii u dambeysay aha. As you can see ilaa halkan downward buu sheegay inuu aha. Yeah. halkan un ala ayat hal because moving average-ka wuxuu sheegay inuu kala sarsareeyo waa in strategy aan khaas u isticmaalo. Haddii aan strategy garanaynin waad weydiin kartaa kayga oo yani khaas ugu sii baahanta waan kuu sheegi karaa muhiim aha because wadaynu lacag ka wada faa'iideyna maxaan kugu diiday. Anyway 15 frame-kayga igu noqo waxa weeyaan markaas 15 frame-kayga anigoo u isticmaalaya inuu yahay resistance oo isticmaalaya moving average-kan aad arkayso color-kan ii saaran yahay buluugga waxa uu dhowr jeer soo ah moving average. At the same time aniga line kale oo dhigtay baa jira oo ugu talagalay waxaan ka wada ugu talagalay as a resistance marna support soo ah back hadaad fiiriso trade-ka markaas waa la soo tijaabiyay again because saddex in ka badan baa wanaagsan. halkaas wuu soo tijaabiyay halkaana wuu soo tijaabiyay again dhinacaasna wuxuu soo ahaa resistance again and again and again. So dhowr jeer oo hore la soo tijaabiyay marka ani powerful baan u qaatay inuu yahay midkaas saas darteed baan ugu trade gareynay asxaabay. Marka halkaan markaan soo gaaray waxaan dhameeyay aniga strategy inta maxaan dhahay simple strategy oo markaan dhaqsanayo kala aan isticmaalo ayaan dhameystiray. Then markaas aan downtrend inuu yahay ogaaday inuu haddana strategy-gan uu maxaan dhahay waafaqay oo like inuu moving average aan isticmaalay resistance-ga on resistance ahaan uu dhacayo. At the same time aan maxaan dhahay resistance-ga aan dhigtayna uu resistance ugu dhacayo dhowr jeer hore halkan ka tijaabiyay. Halkaas waxa iga cadaatay in uu noqon karo downtrend. So ani down baan soo trade garey oo adiga arkana maxaan dhahaa waxaan isticmaalayo short sell. So short sell halkaas ma ka soo short sell garey asxaabay waa USD Japan. haddana currency-ga lacagta waxay maraysaa $6 buu marayaa waa bilow wax badan ma socdaan mooda wali buyers baa suuqa soo galay laakiin aniga waxaan sugayaa probably inuu meelaha soo gaaro suuqa uu socon doono waan aaminsanahay. So anyway inshallah asxaabi trade-kan aan hadda ku jiro waa intuu qaabkiisa trade-ka kale aan idin tusayo waxa weeyaan trade-kii GBP Japan-ka. So GBP Japan-ka asaga moving average-ka yaa halkan aan u isticmaalaya yani maadaama aan u isticmaalayo USD Japan-ka umba hada moving average-ka aan rabin inaan iska kaxeeyo ayuu halkan igu yaala laakiin moving average-ka uma isticmaali hadda kan uma isticmaali because uu laaqaya kan waa sida range oo kale uu samaysan yahay right. So downtrend iyo uptrend midna ilama eega aniga baalkan laakiin waxaan sameeyay aniga trend ayaan u sameeyay and trendigi koowaad markuu guuleystay trendigi labaad baan fiiriyay. Trendigi labaad ma guuleysanin laakiin trade-ka aan ma gelin. Trendigi saddexaad uu guuleystay laakiin inta tijaabo baan waday because kan ma trade gareynayn wave-kan waxaan fahansanaa oo wave yar khaldan buu ilaa ka waay and trending aad iska samaysanayso maadaama trending marka aad sameynayso aad adigu samaysanayso waxa fiican inuu dhowr jeer tijaabiyo. halkan marka ani one space ayuu ii tijaabiyay markii labaad ayuu ahaa daa'ir. So mar walba trending-ga xataa aad dhigaynayso waa inuu dhowr jeer la tijaabiyo like powerful soo noqdo multiple time in la tijaabiyo iska fiiri fadlan. And anyway inshallah ani markaan halkaas soo maray ayaan trade gareeyay oo arkaysan symmetric-kaas trade-ka aan u galayna sababtoo idin sheegi karaa trade qaabka aan sameeyay waxay ahayd trade-kaas waxaan dhigtay support buy stop there waxaan ka wadaa line-kaas buy stop-ka iyo halkan sell stop-ka labada trade ba waan galay inshallah instruction-kan waan ku fahansiinay really waa instruction aad markuu line-ku sidan u jeexjeexmo ama qaabkan isugu noqnoqdo uu aad u yahay oo kale waxaa jira forex chart pattern baa jira oo kuu sheegay markaas oo kale wadooyinka aad samayn lahayd iyo waxa samayn lahayd like yani maxaad seed u xallin kartaa falan wax noocaas ku sheegay laakiin inta badan
chartigaas uu ka hor imaan kara like hadda waxaa jira rectangle mid triangle jira mid waxaa jira sida maxaan dhahay bearish laakiin inverse camal oo kale cube inverse oo kale I remember and head and shoulder isaga aad buu fiican laakiin anyway adi maadaama ay jiraan waxaas oo dhan uu hadana ka hor imaan karo trendiga uu ka hor imaan karo waxaad sameynaysaa inaad maxaan dhahaa aad adiga marka strategy leedahay labada dhinaca insha Allah aan ku fahansiin doono hadhow markii aad adiga soo codsatid insha Allah hadii aad muhiim u aragto weeyaan because waxa duusan muhiim ah ku dadaalmayno insha Allah waxaan idin rajaynayaa khayr trade-yadii hore dib u fiirin kartaa waxaan idin rajaynayaa khayr insha Allah asxaabta aan ogeyn channelka iyo wuxuu ka kooban yahay hadii aan damcayna halkan ugu sharaxo videogan ayaa dheeraan fadlan videoyadii hore eeg waxaan ku soo dhigay linkiga hoosta hadii aadan marka channel subscribe karin ha iloobina subscribe karis insha Allah waxaan isugu imaanaynaa kan oo dhinaca uu maray inuu ogaano because labada dhinacba waan dhigtay labada dhinacba waan trade gareeyay oo waan ku jira because wax iga khasaarayna ma lahan waa buy stop sell insha Allah waxaan ku rajaynayaa khayr asxaabay hadii aadan marka iloobin channel subscribe karin ha iloobina subscribe karis channelka assalamu alaykum insha Allah